oo ah sida qof cusub noola hadal sida qof cusub maanta hadaa wada hadalno ama idinla hadlo aniga inaa cusbahay oo kale su'aalo ayaa isweydiinaysaa qof walbo cusub markuu suuqyadan uu soo maqlo digitalka ah ama cryptocurrency uu soo maqlo su'aalaha kusoo dhacayso su'aasha ugu horeysa oo kusoo dhacaysa waxay tahay waa maxay cryptocurrency waa maqashay cryptocurrency waa maqashay mar walba lagu sheegaa dhagahayga way ka bateen laakiin maxay tahay ma isweydiisay waa maxay cryptocurrency haddii si yar oo fudud oo qof walba fahmi karo cryptocurrency aan sharaxno waxay noqonaysaa cryptocurrency waa lacag oo digital ah oo aanan lahayn taabasho ama wax la taaban kara aan ahayn sida lacagaha caadiga ah ee wadamada ay leeyihiin ee loo yaqaano fiatka ama dollar ha ahaado ama euro ha ahaato ama pound ha ahaado ama wax kale ha ahaado waxayna ku shaqaysaa shabakad la yiraahdo decentralized taasoo micnaheedu yahay in aanay lahayn maamul dhexe sida bangi dhexe ama dawlad ama cid kale u dhaxayso ama maamusho suuqaas inaysan jirin waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo ganacsiyo nabadgelyo leh ama ammaan ah sidoo kale waxaa loogu talagalay in ay noqoto dhaqaale xor ah qofka oo yeesho oo gaaro xornimo dhaqaale iyo in lagu keediyo hanti oo aan cidna ku tiirsaneyn taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay maanta qof walba oo lacag haysta qof walba oo taajir ah qof walba oo lacag yar xataa haysta xor ma ahan micnaheedu wuxuu xor ku ahayn lacagtaada waxay taalaa markay ugu yar tahay bangigana mar haddii lacagtaada taalo xor ma tihid sababtaa bangiga xilli walbuu kaa xira karaa lacagtaas xilli walbuu maxaa la freeze kaaga samayn karaa dowladda xilli walba investigation kuga samayn kartaa ku baari kartaa lacagahaagana meel walbo hanti ku taalo waa la xayiri karaa adduunka meeshaa ka joogtidba adigoo xataa Soomaaliya ku nool hadaa ka tagtid oo aad tagto wadamo kale lacagtaada still waa la xayiri karaa saas darteed cryptocurrency waxaa loo sameeyey in aysan lahaanin wax xuduud ah sidoo kale aysan lahaanin wax xayiraad ah oo qofka dhaqaale uu ku gaaro dhaqaale xor ah oo maanta hadduu $1 haysto iyo hadduu haysto 1 milyan inay isku xuquuq yihiin labadaas qofood oo qof walba lacagta jeebkiisa ku jirto si xornimo ah oo u maamula karo waxaa jira marka sifooyin muhiim ah oo u baahan tahay inaad ka fahanto cryptocurrency-ga cryptocurrency waxaa dhahnay waa decentralization waxaa maamula shabakad dad badan ay isku tageen oo loo yaqaano nodes oo isku xiran halkii uu maamul lahaa qof ama hay'ad gaar ah taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay in kombiyuutarro adduunka ku kala qof walba xogtiisa ay ku jirto xogtaasoo loo yaqaano nodeskaasina uusan qof keliya gacanta ku haynin oo ay ku haayaan adduunka dad tiro badan ee ku kala fiirsan hal qof oo kamid ah haddii uu shaqaynayo kombiyuutarkiisana waxay ka dhigan tahay in hawsha shaqadaas ay sii soconayso oo aysan qofna u istaageen laba waxaa jira wax la dhaho cryptography waa tiknoolajiyadda loo adeegsado si loo xaqiijiyo amniga macaamilada waxaa la dhahaa transaction kulli waa maqashay wax xawilaad ama wax in la kala bedelo ama la kala diro marka af Soomaali si fudud macnaha dadka si ugu fahmaan af Soomaali macaamil ay noqonaysaa ama macaamilada loona xafdiyo xogta dadka isticmaalayaasha ah xogtaada waa safe cid kale oo magacaaga maanta uguma jirto cid kale oo addresskaaga heli karta ma jirto cid telefoon lambarkaaga heli kartana ma jirto halkaas ay ammaan ku tahay saddex limit supply cryptocurrency badan waxay leeyihiin limit supply oo ay ugu weyn tahay bitcoin wuxuu leeyahay 21 milyan oo keliya ah wax walba markii limit ay leeyihiin supply-gooda uu limit yahay oo xadidan yahay taas waxay ka dhigan tahay 21 milyan kadib bitcoin inaan cidna soo daabici karin halka dollarka saacad walba lasoo daabici karo euroda saacad walba lasoo daabaco shilin Soomaaliga saacad walba lasoo daabaco ay dawladda ayada maamusho oo xilliga ay rabtana ay soo daabici karto xilliga ay rabtana ay xareysan karto laakiin halka bitcoin ka bedelan tahay taasoo ah in ay leedahay limit supply marka shayga limit supply uu leeyahay oo yeelanayo qiimaha waxa uu yeelaya marka waa supply-ga ay haysato supply-ga mar walba uu yar yahay oo xadidan yahay
waa mar walba uu qiimo leeyahay, mar walba uu faraha ka bato waa mar walba oo sicir barar halkaas oo ka dhici karo. afar waxaa jira wax la yiraahdo peer to peer. peer to peer-ka waxaa loola jeedaa waa macaamil si toos ah uga dhacayo qof ilaa qof kale, iyadoo aan dhexdhexaadyo la isticmaalin, cid dhexdhexaad ah aan loo baahnayn. maanta aniga haddaan rabo in adiga lacag kuu soo diro, adresskaaga iisoo sheegaysaa, adresskaagun baa gelinayaa, waa kuu soo diraya, lacagta wayna kusoo gaaraysaa sakame kadib. halka bedelkeeda haddii maanta u baahanahay bangi inaan lacag kaaga soo diro, anigii adiga waxaa noo dhexeeya bangi aa noo dhexeeya. bangigaas lacagta hadduu doono anuu igu soo celi karaa, hadduu doono adiga kuma gaarsiinaya oo asagii dhex taagnaa kartaa. taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay marka waxaa leedahay dhexdhexaadiya, laakiin halka cryptocurrency aysan lahayn wax dhexdhexaadiya ah, aniga adiga cidna nooma dhexayso. haddaa u gudbo tusaalooyin, bitcoin tusaale ugu hore kasoo qaadaynaa. bitcoin waa lacagtii ugu horreysay ee cryptocurrency ah oo la sameeyey sanadkii 2009. waxaan loogu talagalay inay noqoto lacag caalami ah oo xor ah. hadda waxaa loo yaqaanaa digital money. sidoo kale waxaa jirta lacag kaalinta labaad ku jirto suuqyada markii la joogo cryptocurrency oo la dhaho ethereum. waa lacag loogu shaqeeyo teknolojiyadda ugu badan waxa ay qabatay tahay smart contractska oo xaqiijinaya barnaamijyada aan xarunta lahayn, decentralized application. barnaamijka ugu badan ay qabato iyo smart contractska waa isku xirayeen. ethereum aan ugu caansan shaqadaas cidda qabato. okay, faa'iidada maxay tahay marka in cryptocurrency hadda wax yara kasoo fahantay, bitcoin limitkeeda garatay, sababta cryptocurrency loo sameeyay waa garatay, sifooyinka iyo waxa ay leedahay qaabkay u shaqeyso waa fahantay. faa'iidada maxay tahay marka, maxaa laga faa'iidayaa cryptocurrency? cryptocurrency waa lacag caalami ah oo loo isticmaali karo meel kasta adigoo kaliya haysta internet. waa faa'iidada number 1 aa haysato. 2, qiimeyn weyn ayay leedahay marka loo eego xorriyadda dhaqaale oo ay siiso isticmaalayaasha. because maanta waxaa xor u tahay meel walba adduunka ka joogtid in wax lagu soo diri karo, waxna aad diri karto, weliba adigoo aanan wax limid ah lahayn. intaa doonta lacag micnaha 1 milyan, 100 bilyan, intaa doonta in aad kala wareeji kartid secondkii aa u baahan tahay. 3, maamulka lacagaha waa mid buuxa adigoo isticmaalaya private key. lacagtaada adigaa maamulanaya, qof kale oo kula maamulaya ma jirto haddii aadan xogtaada adiga qof kale aadan siinin, cid kule og ma jirto. waa inaa marka xogtaada aa ilaalisaa. okay, wax walba markii faa'iido lagu sheego waxaa jirta caqabad. shay caqabad lahayn adduunka ma jiro. caqabadda koowaad maxay tahay? caqabadda koowaad ee haysato cryptocurrency waxaa waaye dad badan ma fahansana, taasoo ka dhigaysa inay ku adag tahay in ay si buuxdo loo aqbalo. fahan la-aanta waa sababta ugu horeysa ama caqabadda ugu weyn ee haysata cryptocurrency-ga inay horumar ama horusocod ay samaysa inay tahay in dadka ay ku adag tahay inay si buuxdo u aqbalaan cryptocurrency-ga. 2, caqabadda labaad ee haysato cryptocurrency-ga waxay tahay qiimaha si aad ah ayuu isku bedelaa ama si dhaqsi leh isku bedelaa, taasoo maalgashiga ka dhigi karta mid khatar leh. suuqa waxaa ka jira waxa la dhaho volatility, kor iyo hoos u socdaa, weliba marka qaar si xad dhaaf ah. xad dhaafkaas marka wuxuu keeni karaa faa'iido iyo khasaaro. taas marka waxay keenaysaa cabsi oo emotional ah, dadka inay ka baqaan dhaqdhaqaaqaas in ay caqabad ku tahay lacagaha ay meesha keensadaan. labada caqabadood waa labada caqabadood ee ugu weyn ee cryptocurrency-ga lagala kulmo marka la joogo.